بسم الله الرحمن الرحيم. marka horeysa waxaan salaamayaa ummadda Soomaaliyeed ee dunida daafeega ku nool. waxaan ku salaamayaa salaamta islaamka. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Salaan kadib shirkeyga jiraayada maanta wuxuu daaran yahay laba qodob. ka falcelin shirkii ka dhacay dalka Djibouti caasimadiisa Djibouti iyo xasuuqii ka dhacay Boorama 1991 4 February labada qodob. qodobkayga koobaad ee horeysa waxaan ku soo qaadanayaa ka falcelin shirkii Djibouti. waxaan marka horeysa weydiinayaa ummadda Soomaaliyeed amba aqoon-yahanadii iskugu yimiday shirka Djibouti ka dhacayay waqooyiga Soomaaliya iyo marka ay wada hadlayaan koonfurta Soomaaliya ma waxa degan hal reer waqooyiga Soomaaliya mise waxa degan qabiilo badan oo kala duwan ayaa degan. ma aha markii uu horeysay ay dhacday arintani horay u dhacday in Turkiga lagu wada hadlay hal reer baa mar walba socda oo matala waqooyiga Soomaaliya. marka waxaan jeclaan lahaa mar dambe oo dhacaysa arintaasi in ummadda Soomaaliyeed ay ka fiirsato cidda ay kala xaalayso arrimaha waqooyi inay yihiin ummad isku dhafan oo loo baahan yahay inay ka wada dhex muuqdaan beelaha degan gobolada waqooyi. ugu dambeyntii waxa ka dhacay shirka Djibouti si wanaagsan ayuu waxa uu wada hadlay Professor Hussein Warsame Nageeye oo ka hadlay in waqooyigu u baahan yahay inuu horta isagu isku noqdo isa soo saxo isagoo si cilmiyeysan oo muwaadinimo iyo Soomaalinimo iyo danayn bulshada Soomaaliyeed inay mid noqoto danaynaya u hadlay. Professor Bulxan wuxuu u jawaabay si cadifadi ku jirto waa ayaan darre inteeda leeg isagoo Professor Soomaaliyeed inuu markiiba Hussein u abaaro si qabiil isaguna Hussein hadalka u dhigin si qabiil waxa uu markiiba yiri 1960 waxaad ka hesheen boqolkiiba 2 ayaad ka hesheen dawladda Soomaaliyeed. horta ereyga sidaa uu dhigay isagoo professor oo jaamacadii adduunyada ugu sareeyay ka soo baxay waa ayaan darro. marka uu leeyahay ka hesheen waxay ummad la siiyay ayaa loo isticmaalaa ka hesheen laakiin beelaha Gadabuursi waa beela Soomaaliyeed xaq u leh inay madax ka noqdaan qaranka Soomaaliyeed iyo meel kasta oo Soomaali kaga wada hadlaysaba. taa uu isticmaalay talabaad uu isticmaalay waxa uu yiri waxaad ka heshaan waqooyi oo la idinka siiyay madaxweyne. Professor Bulxan waxaan leenahay ereyga laftirkiisa mar labaad ayaa deelqaad samaysay ummadda amba beelaha Gadabuursi waxaan leeyahay waa muwaadiniin waa dad dalle waa dad deegaana madaxweyne ku xigeen golo wasiir golo baarlamaan xaq bay u leeyihiin inay ka noqdaan. halka aad leedahay marka waa la idin siiyay waxaad muujinaysaa inayna Soomaaliland wada yeelasho amba wada lahaansho ayna jirin oo cid gooniya u idman tahay. taasaad ku muujinaysaa inay beesha dhexe leedahay oo u adeegayso maamulkaas maamul beesha dhexe oo adeega u yahay. taasi waa mid shirka Djibouti. arinta labaad Soomaali way isxasuuqday sida ay u dhanayd meel walba waxa ka dhacay dhimasho iyo dil iyo baba reera iyo jaar iyo cid walba oo dagaaladii sokeeyay way saameeyeen. 4 bishii February 1991 jabhadii SNM waxay soo gashay magaalada Boorama 24 saacadood gudahood waxay ku dishay 1000 qof haddii ayna ka badnayn oo tirada qaldeen. waxa haddaba ayaan darra inaad idinku diyaarado u samayseen oo saarteen meelo taangiina saarteen xustaana oo tidaahdaan waa taariikh guurta ah in la sameeyo xasuuqii ay u geysatay dawladda Soomaaliyeed beesha dhexe kii jabhadda SNM u geysatay Boorama iyo agagaaradeedana iska daa taalo loo dhisay aad tidaahdaan lama xusi karo lamana soo hadal qaadi karo. waxaan haddaba baaqu dirayaa beelaha Gadabuursi dal iyo dibadba meel kasta oo dunida ka joogaan waxaynu xusi doonaa 4 February 1991 xasuuqii ka dhacay degmada Boorama taas oo reeraha qaar siday u dhanaayeen ba ay laba qof ka hadheen iyadoo ay ku geeriyoodeen dad shiciba oo waxba galabsan oo da'walba leh caruur ciroole iyo da'dhaxaba. marka fariintayda waxaan ku soo gabagabeynayaa baaqaa waxaan danaynaya ee beelaha Gadabuursi meel kasta oo ay joogaan inay nala soo xiriiraan taalana loo dhiso lagu xusaayo 4 February 1991
كوب إيوس سقاشنكي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.